kulanti wacan oo wanaagsan meel walba ku sugateen kuna soo dhawaada barnaamij kale oo aanu kaga hadli doono xiriirka jacayl ee ay horay u wadaageen ama xiriirka jacayl ay lahaayeen labada aktar ee Bollywoodka ee kala Kareena Kapoor iyo Shahid Kapoor iyo sababtii keentay in uu xiriirkaas burburo. Kareena Kapoor oo xaaska xilligan ee Saif Ali Khan ayaa sidoo kale lagu xantay in xiriir jacayl la wadaagtay qaar kale oo kamid ah aktarada Bollywoodka laakiin way beenisay. Kareena iyo Shahid ayaa si wadaagay jacayl aan caadi ahayn hatta waxa ay dareenkooda ku soo bandhigeen filimkii Fida ee adduunka laga daawaday sanadkii 2004. waxaase xasuusin mudan in filmaantii ay labadan lamaane ka soo wada muuqdeen dhammaantood ay noqdeen kuwo inta badan suuqyadooda ay qasaareen marka laga tago filimkii ahaa Jab Weymer ama xilligii aan kulannay. Kareena iyo Shahid ayaa saaxiibo ahaa 3 sano markii ay sameynayeen filimkaas Jab Weymer. xiriirkooda ayaana si weyn looga baahiyay saxaafadda dalkaas Hindiya waxaana ay kaamirooyinka qabteen iyagoo sameynaya romantic amaba baashaal aan caadi ahayn laakiin waxa ay sawirradii laga qaaday loo soo bandhigay shacabka. sanadkii 2006 Kareena ayaa shaacisay inay noqotay vegetarian amaba dadka qudaarta ay u gaar tahay. go'aankaas ayayna sheegtay in door weyn uu ka lahaa jacaylkeedii xilligaas ee Shahid Kapoor. saxaafadda ayaa warisay in khilaaf xoogan uu ka dhex jiro Shahid iyo sidoo kale Kareena iyadoo xataa ay maalmo badan aysan wax wada hadal dhex marin lamaanayaashan xilli hore jacaylkooda uu burburay. dad badan ayaa isweydiinaya sababtii keentay in uu burburo jacaylkii ka dhaxeeyay Kareena Kapoor iyo Shahid. hase ahaatee meeshan waxaan idinku haynaa dhowr jawaab inkastoo ilaa hadda aan la helin xogta rasmiga ee ku aadan in uu burburo xiriirkii lamaanayaashan. miyaad og tahay in qofka xiriirka jaray ay tahay aktirishada Kareena Kapoor taas oo qiyaamaysay Shahid Kapoor? laakiin su'aasha ayaa ah waa maxay sababta? waxaa jira waxyaabo badan oo la isla dhex marayay oo ku saabsan kala qaybsanaanta Shahid iyo Kareena Kapoor. dadka qaar ayaa sheegaya in arrinkan ay sabab u ahayd shaqada Kareena Kapoor iyo mustaqbalkeeda taasoo ay siinaysay inay ka mid noqoto aktirishooyinka caanka ee Bollywoodka halka dadka qaarna ay sheegayeen inuu jiray isfahan darro labada lamaane ka dhex dhacday. waxaa kale oo jiray warar kale oo sheegayay in Kareena ay xiriir hoose la bilowday Saif Ali Khan xilligaa oo markii dambe gabadhan guursaday halka dad kale ay sheegayeen in xiriirka saaxiibtinimo ee Shahid uu la ahaa gabadhii Amrita Roy ee arrintaa ay sababteeda lahayd oo sidaa ku maseertay Kareena Kapoor. waxaa kale oo jiray in Shahid uu aad uga xumaaday inuu waayay jacaylkii saaxiibtiisii hore ee Kareena Kapoor. si kastaba Shahid ayaa saxaafadda hor yimid kana hadlay xiriirka burbure ee kala dhexeeyay Kareena. caadi ahaan waxaa la weydiiyey sababta keentay in xiriirkaas uu burburo laakiin Shahid Kapoor ayaanan sabab rasmi ah u keenin xiriirka burburay ee Kareena waxaana quruxleydii Kareena uu u rajeeyay inay farxad ku joogto weligeed isagoo yiri waa gabar cajiib ah. waxa uu tilmaamay inuusan wax shalay ah ka qabin xiriirkii uu la sameeyay Kareena una bilaabayo inay noloshiisa ka soo kabato jacaylkii burburay ee uu gabadhaas u qaaday. Kareena ayaa dhankeeda saxaafadda la hadashay waxaana ay diiday inay faahfaahin dhab ah ka bixiso sababta ay xiriirka u burburisay. si kastaba iyaga ayaa inaga og sababta keentay in jacaylkooda uu burburo lamaanayaashan xilli hore sida weyn uga dhex muuqday Bollywoodka ee jacaylka wadaagay. 18 Oktoobar 2007 Saif Ali Khan ayaa xaqiijiyay xiriirka kala dhexeeya Kareena Kapoor waxaana uu yiri wax fiima hadda ma wada jilayno laakiin waan wada joognaa waana ku faraxsanahay inaan wada joogno ayuu yiri markiisii ugu horeeyay ee Saif Ali Khan uu saxaafadda u cadeeyo in Kareena Kapoor ay xilligan tahay saaxiibtiisa oo jacaylkiisa rasmiga. kadib markii uu burburay xiriirkii uu la lahaa Kareena, Shahid ayaa lala xiriirinayay inuu jacayl la wadaagay gabar walba oo Bollywoodka sida Vidya Balan, Priyanka Chopra iyo kuwa kale. haddaba maxay Kareena Kapoor ka tiri xiriirka burburay ee saaxiibkeedii hore ee Shahid Kapoor? waa maxay sababta aan culeyskan oo dhan u qaadayo? horay ayaan u socday sidaas si lamid ah ayaan u rajeynayaa Shahid Kapoor ayay saxaafaddu u sheegtay Kareena Kapoor iyadoo hadalkeeda sii wadata ayayna tiri qofna nama kala wadi karo haatan ninkayga Saif Ali Khan. aniga xataa sheekooyinkan dabaalnimada ah ee aad dhabarka iga saarteen waan ka daalay. fadlan waxaan idinka dalbanayaa inaad naga tagtaan oo aad nadaysaan aniga iyo ninkayga ayay sheegtay Kareena Kapoor. isagana waxa ay saxaafadda wax ka weydiisay Shahid Kapoor waayaane sababta keentay inuu burburo xiriirka jacayl uu la lahaa aktirishadan Kareena Kapoor waxaana uu yiri
waxaan u rajaynayaa farxad intay nooshahay waxaana u hayaa xushmad aan caadi ahayn waana gabar cajiib ah isagoo hadalkiisa sii wata shaahid kabuur ayaa yidhi dhammaan gabdhaha jooga waxaan ogeysiinayaa inaan ahay doob diyaar u ah inaan nolol cusub samaysto waa been haddii aan dhaho arrintan ima aysan saamayn waxaan ahay bini aadam waana dhaawacanahay waxaana murugo ka dareemayaa dhammaan sheekooyinka laakiin weji kale iima furna waa inaan arrintan iska hilmaamo ayuu shaahid kabuur saxaafadda u yidhi shaahid kabuur ayaa hadalkiisa ku daray qofna haatan waxba uma haysto mana arko wax hoos ii dhigaya waxaan doonayaa inaan keliya haysto xasuustii wanaagsaneyd ee xiriirkaas kadibna aan horay u sii socdo ka fiiri dhinaca wanaagsan waxaan haatan ahay qof faraxsan mar uu ka jawaabayay shaahid kabuur inuu xiriir la leeyahay atirishooyinka ugu waaweyn ee xilligan filimaanta bollywoodka ayaa waxau yidhi dad badan ayaa idhaha waxaad xiriir la leedahay xiddigaha bollywoodka filimkii ahaa kismat connection waxa uu na xiriiriyey aniga iyo fidya ballan haatan haddana waa filimkii kaminey oo arrintu ay taagan tahay aniga iyo briyanka jabra briyanka iyo aniga waxaan nahay saaxiibo wanaagsan dadka ayaana meel qaldan wax u fasiraya haddiise aanan xiriir yeelanno aniga ayaaba ka hadli lahaa si kastaba xiriirka shaahid kabuur iyo sidoo kale kariina kabuur ayaa burburay waxaana horay u watay noloshooda caadiga ah kariina ayaana haatan canug u haysa sayf cali qaan halka shaahid uu isna ku faraxsan yahay noloshiisa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan kale ee gaarka aynu kaga hadlaynay sababta keentay burburkii jacayl ee ay wadaageen labada actor ee bollywoodka oo kala ah kariina kabuur iyo shaahid kabuur waxaa barnaamijkan idila socodsiinayay anigoo cabdullaahi axmed nuura barnaamijyo noocaana iyo barnaamijyo kale oo la xiriira arrimaha bollywoodka iyo sheekooyin kale oo cajiib ah haddii aad u baahan tahay subscribe pagekeenna kana mid noqo asxaabta ku tixan sheekooyinkan waad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijkan